duqa degmada Boocame ee gobolka Sool mudane Faarax Cali Maxamed oo heliyay mas'uuliyiin ka socda sida taliyaha saldhigga bilayska degmada Boocame ayaa saaka kormeer ballaaran ku sameeyay xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo biyaha ee degmadaasi Boocame ee gobolka Sool waxaana duqa oo xog wareysanaya xaaladda guud ee degmadaasi uu kormeer ku tagay dugsiga hoose dhexe ee Boocame Primary halkaas uu ka xog wareystay waxbarashada iyo waliba macallimiinta xaaladda guud ee waxbarashada degmadaasi waxa kale duqa degmadaasi uu kormeeray gaadiidka degmadaasi oo dhawaan ugu deeqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland kaasoo laba gaadiid oo lagu talagalay in lagu adeego adeegyada bulshada degmadaasi Boocame ee gobolka Sool gaadiidkan aad aragtaan wuxuu ka mid yahay gaadiidkii ay xukuumaddu ugu deeqday degmada Boocame waxay kala yihiin kii dawladda hoose ee degmada iyo kii saldhigga booliska aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland أحمد محمود سيلان يهجامني وحنا كرمال كسر مرنا دكسي قصر دحى دقمة Boocame دكسي قام بهوين باكم مغطى وهذا كيسان وحب بهاي هيدو هبين القصمية هذه هذا وحنا وصلنا وزير كوزارة وحبرشة جمهورية الصومال أنا قاعد وصلنا إن أي سكول كان يبغى هبين القصمية سو وزارة وحبرشة وبهوين هاي كم مغطى سيدا ضار كيسان degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa ku taala cirifka bari ee gobolka Sool waana degmo ay ka socdaan horumar ballaaran ee deegaankaasi waa Barkad Cumar Axmed telefishinka qaranka Somaliland degmada Boocame ee gobolka Sool